رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkan xakiimka uu noo soo dejiyey waxaa ku jira qisooyin aad iyo aad u cajaa'ib badan. mar waa cibro qaadasho, mar waa hanuun, mar waa naxariis, marna qofku waxay siisaa sabar aad iyo aad u qiimo badan. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu yidhi: innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun. naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi lamin alghaafiliin. laqad kaana fii qasasihim cibrah liuli lalbaab ma kaana xadiiثan yuftaraa walakin tasdiiqa aladii bayna yaday. aayadahaasoo dhan waxay tilmaamayaan qur'aanku inay ku jiraan qisooyin qiimo badan, sheekooyin aad iyo aad u macmacaan. qofka taqwada ku socda ee qur'aanka ku dadabura in badan buu qisooyinka aayaadka qur'aanka ku jira uu qiimeeya, qalbigiisaa isku bedela, iimaankiisaa kor ugu kaca sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. ma aha sheeko xariir sida ilaahay sheegay, ma aha waxyaaba dadka dhowal ka mida iska soo minguuriyeen. laqad kaana fii qasasihim cibrah wa cibro qaadasho yay u tahay dadka ulul albaabka ah, dadka caqliga u saaxiibka ah, dadka garaadka leh buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waxaan aad yaa u qiimaynaa sheekooyinka kale, diin iyo dawacaasaa noqotay iyo ciyaalka waraabaha iyo waxyaabaha lagu hurdisiiyo iyo arrimooyinkaa maanta waa tixgelinaa, kor baa loo qaadaa. dhallinyaradu waxay sheekooyin fiican u maleeyaan jacaylkii waxyaabaha lagu soo sheego buugagta gobolka mid ah. laakiin maxay ku kala duwan yihiin sheekooyinka qur'aanka ku jira iyo sheekooyinka kale dadku abaabuleen ama isku keeneen? maxay farqi ah oo u dhaxeeya? waxaa farqi u dhaxeeya hal arrin haddaanu ka soo qaadano qur'aanka qisooyinka ku jira. hadda haddii lagaaga sheekeeyo oo aad wada dhegaysato, beri haddii lagu soo celiyo inay cusub tahay baad u malaysaa. qalbigayli wuu sii rabaanayaa, khushuuc ayuu dareemayaa, mar kastaa qofku wuu sii rabaanayaa, waana sii jeclaanayaa. amaa sheekooyinka saasay ahayd iyo hodan iyo kii maxaa la odhan jiray boodhari iyo arrimooyinka noocaasoo kale buugaagta ay ku qoran yihiin, maanta markaad akhrisood hal mar dhammayso, dib damba haddaad u dhahdo mar labaad aqri ma kari kartid inaad akhriso, ma awoodi kartid inaad sii wado, inaad sii karahsato oo aad sii nacdo oo aad sii joojiso oo aad mataqaanaa hamaansi bilowda ma ahee ma soconaayo, horayna ma usii soconaayo. joornaalada sheekooyinka lagu soo qoro oo kale
qofku ma awoodi karo inuu wada dhammeeyo. qaar buu ka boodaa, qaar buu akhrinayaa, qaar buu ka tegayaa. waxyaabo fara badan oo noocaas ah dibna ma u tilmaami karo, balse qisooyinka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu ku xusay ee uu ku sheegay waa qisooyin aad iyo aad u muhiim ah. bal isku day maanta meel laga sheekaynaayo, beri haddana meel kaloo goob masjidee laga akhrinayo fadhiiso. waxaad ka faa'iidaysaa iyadoo isla qisadii ay tahay waxaadan shalay maqlin yaad maanta ka maqlaysaa. haddana maalin saddexaad haddaad dhegaysato, labadii maalin waxaadan ka faa'iidin yaad haddana ka sii faa'iidaysaa. saa darteed buu ilaah yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaabi maa kaana xadiidan yuftaraa, ma aha xadiid la been abuurtay iftira iyo kidbi ah. aayadda kale ilaah muxuu ku yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas, waa sheekooyin kuwa ugu fiicfiican buu dha ilah subxaana wa tacaala. qisooyinka qur'aanka ku jira oo dadka looga sheekeeyo waa qiimo, waa sharaf, waa wax ay u baahan yihiin iimaankoodana kobciya. saa darteed buu ilaah yidhi faqsus ilqasas, qisooyinka uga sheekay lacallahum yatafakkaruuna, inay ayaguna fakaraan bay mudan yihiin, qalbigooda inay ku laabtaan. nebi moxamed wixii ku dhacay marka qur-aanka looga sheekaynayo, muuse iyo fircoon wixii kala dhex maray, waxyaabaha faraha badan ee qur'aanka ilaahay uu ku qisooday subxaana wa tacaala waa arrin annaga dan noo ah, waa arrin annaga noo wanaagsan, waa arrin annaga sharaf noo ah, waa arrin annaga ilaahay agtiisa aan qeyl iyo wanaag uga gaarayno. dhegaysigaan dhegaysanayno waa macaansanaa, aragtida aan arkayno waa ku qushuucna, qalbigeenna uu gelay wuu ku dadaburayaa. mar kasta qur'aanka qisooyinka ku qoran walaalayaal aad iyo aad ugu dadaala. qisooyin haddaad doontaanood ka sheekaysataan qur'aanka kugu filan. qiso ee la sheekaysta, wax la weheshta asagaa kuugu filan, wax la akhriya asagaa ugu qiimo badan, wax la xafido asagaa ugu sarreeya, wax ilaahay loogu dhowaado safka hore uu kugu jiraa. saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala qisooyinka uu kitaabka ku tilmaamay uu ku sheegay waxaa ka mida qisadan aan rabno inaan mawduuc ka dhigano, kaasoo ah wiilashii lagu magacaabahayay asxaabuulkahf. asxaabuulkahf marka lagu leeyahay waa wiilal kahf iyo god u hoyday. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kitaabkiisa nooga sheekeeyey. rasuulkaa waxaa u yimid nimankii ahlu kitaabka ahaa, waxay weydiiyeen dhowr su'aal, waan idiin sheegi doonaa ayuuna ku yidhi. in shaa allah ma uusan dhihin rasuulka sala allahu calayh wasalam, waxaad nooga sheekaysaa bay dhaheen nimankii asxaabuulkahf ahaa, waxaad nooga sheekaysaa ood nooga warantaa ruuxda. saddex su'aalood oo noocaasoo kaley weydiiyeen. waxa suuragala midda kalena dilqarnayn inay weydiiyeen. waan idiin sheegayaa buu yidhi. waxyigii baa dib uga dhacay, dhowr maalmood buu waxyigii ka soo daahay. sidaa darteed baa ilaahay soo dejiyey walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika gadan ilaa an yashaa allah. rasuulkii allow ha dhihin arrintaasaan samaynaa beri, waxaasaan ku dhaqaaqaa beri, waxaasaan qabanayaa beri. walaa taquulanna lishayin innii allah, ilaahay hadduu doono inaad ku darto maahane, waayo waxaan beri qabsan doonna ma naqaano. saa darteed wax kasta doonidda allah lagu daraa, in shaa allah baa lagu daraa. haddaad arrin shaa allah ku darto qofku wanaag iyo qiimow gaarayaa, wixiina ilaahay baad u tiirisay. haddaad samayn weyso iyo haddaad samaysaba labadaba ilaahay doonitaankiisay ahaatay. nebi sulaymaan baa yidhi caawa 99 imra'adood oo dumar ah yaan wada ku dawaafi doonaa, ama 100ba sida riwaayadaha qaar ay tilmaameen. mid kastaa galmood baan ku samayn doonaa oo waan la seexan doonaa buu yidhi. 99kooda ama 100koodana uur bay wada qaadi doonaan, ilin hami weyn baa ku jira sulaymaan. uurka ay qaadayaan wiilal bay ii dhali doonaan buu yidhi. wiil kastoo la dhala faaris geesi buu noqon doonaa, jidka allowna difaaci doonaa, diinta allow kor u qaadi doonaa. laakiin in shaa allah ma uusan dhihin sulaymaan calayhi salaam. doonitaankii ilaahay kuma xirin calayhi salaam. saa darteed baa nin saaxiibkii ah oo jibriil lagu fasiro oo agtiisa joogay baa yidhi qul in shaa allah dheh. laakiin sulaymaan ma uusan maqlin. hadduu maqli lahaa wuu dhihi lahaa, hadduu maqli lahaa way ka soo bixi lahayd afkiisa, waayo xusuustaa la xusuusiyey. ma uusan maqlin sulaymaan calayhi salaam. waa saamo qaaday, waa tallaabo qaaday, waa tallaabo dheereeyey. 100kii buu habeenkii maray.
99 ama 100 imra'adood ayuu habeenkii galmood ku sameeyey. mid kastaa waa uu la seexday, mid kastaa jimaac buu ku sameeyey, laakiin wax uuraystaaba la waayey. waa in shaa allah baa ka maqnayd meesha. walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah ma lahayn. doonitaankii alla kuma xirin sulaymaan. sidaa darteed baa 100kiiba wax uur qaadaa la waayey. mid baa uur qaadoo canug dhacis ah ay markaa keentay bay riwaayaduhu gobol ka mida tilmaamaan. sidaa darteed waatuu ilaah yidhi walaqad fatannaa sulaymaan waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan uma anaab. jasad baa lagu soo tuuray, cad baa loo keenay, kan baa lagu dhalay baa la yidhi. aaway 100kii maxay u uuraysan waayeen? aaway 100kii maxay wiilal u dhali waayeen? aaway maxay wiilashii u halgami waayeen? in shaa allah baa ka maqnayd. walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah. inaad dhahda ma ahee si kale arrin ha u dhihin ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. aaway wiilashii beerta ka gubatay, aaway wiilashii beerta ay ka gubatay markay dhaheen waan goosanaynaa beri. walaa yastathnuun, maysan istinoonin. istinaha waxaa loola jeedaa in shaa allah ma aysan dhihin, ma dhihin. waayo markii beertii ay gubatay qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun. tusbiixsada ma idin dhihino buu yidhi kii weynaa, kii caqliga badnaa ayaa dhahay in shaa allah dhaha habeenkii. ayagu ma aysan dhihin walaa yastathnuun, maysan istinoonin. beertii beri waa goosanaynaa baa la yidhi, in shaa allah laguma derin. fataafa calayha taa'ifun min rabbika wahum naa'imuun. ayagoo huhurdaaya yaa beertii gubatay. hal mar buu ilahay dab qabadsiiyey subxaana wa tacaala. markii gebagabadii shalaydii ay timidna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun. markaasaa la fahmay qaaluu subxaana rabbina. markaasaa ilaahay loo laabtay subxaana wa tacaala. xaaladaasaa marka rasuulkii qabqabsatay. 3dii su'aal markay weydiiyeen buu dhahay waan idiin sheegi doonaa. ma uusan istinooninoo subxaana allah in shaa allah iyo doonidii ilaahay ma uusan ku darin. laakiin aayadaha isla suuradda laftigeeda yaa lagu qabsaday oo loogu tilmaamay nebiga, oo markaa la yidhi ha dhihin hadda wixii ka dambeeya arrintaasaan samayn doonaa ilaa inaad in shaa allah dhahdo. kadibna waxyigii baa ku soo degay am xasibta ana asxaaba alkahfi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajabaa. rasuulka allow ma waxaad u malaysay oo ay kula noqotay reer kahaf waa wiilal gudgalay, iyo asxaabu alraqiim waa ruuxii lagu qoray magacoodee kaanuu min aayaatina cajaban. aayaadkanina ayagoo cajaa'ib badan yihiin. war qofku hadduu xaqdoon yahay xaqa wuu qaataa. war dadkan dad xaqdoon ah ma aha. meeqa aayadood baa la tusiyey, meeqa calaamadood buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. hadday hanuundoon yihiin wiilal god ku dhuuntay hanuun u siyaadin maayo. wiilal god ku dhuuntay haddii looga sheekeeyo, hadday xaqdoon yihiin intaasoo aayaad baa loo sheegay ku caqli qaadan lahaayeene. am xasibta ana asxaaba alkahfi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba. kadib buu ilaahay ka sheekeeyey subxaana wa tacaala. magaalay degganaayeen, boqor kaafir ah ayaa haystay. waxay riwaayaduhu gobol tilmaamaan inuu ilaahnimo sheegtay boqorkaa meesha deggan. xaaladdu markay meeshaa maraysay wiilal baa soo baxay, tiradoodu aan gadaal ka sheegi doonno haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. wiilashii intay istaageen bay ka dhiidhiyeen arrintii, way ka gelgasheen, wayna diideen boqortinimadiisa. intay hor tageen bay dhaheen ilaah ma tihid, waxaad sheegaysa waa been. annaga iyo adiga ilaah haween baa ilaahay noo ah. taa markay dhacday oo uu dili rabay ayay wiilashii baxsadeen, markaasay god ku dhuunteen. sheekadu waa sida oo ilaahay baa yidhi id awa alfidyatu ila alkahfi. wiilal dhallinyaro ah ayaa god u hoyday, god bay aadeen. faqaaluu rabbana aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrina rashada. ilaahay bay baryeen subxaana wa tacaala. wiilal muwaxidiin ahay ahaayeen, ilaahay bay aaminsanaayeen, diinta allay ku socdeen, khayrka iyo wanaagay ku dadaalayeen. boqorka boqornimada ilaaha sheegtay diideen. id awa alfidyatu ila alkahfi. weliba taariikhdu waxay tilmaantaa wiilashu waxay ka dhasheen qoysas laban. ahlu farwa'a, dad lacag leh ayay ka dhasheen wiilashan. sidaa darteed bay sariir ku seexan jireen.
quraac bay cuni jireen, qaday cashana ma dhaafi jirin oo ma gafi jirin. waxay ahaayeen niman ama wiilal nolosha midda ugu fiican xagga adduunka kaga jiray. waxay ka doorbideen boqor ilaahnimo sheeganaya hoostiisa intay ku noolaan lahaayeen ayagoo hantiilayaal ah oo nolol fiican ku nool sida daayeerka inay godka galaan ayay ka doorbideen baa la yidhi. id awa alfidyatu ila alkahfi faqaaluu rabbanaa, waxay dhaheen rabbanaa aatinaa min ladunka raxma, allow agtaada naxariis naga sii, wahayi' lanaa min amrinaa rashada, arrinteennana rashad iyo toosnaan iyo hanuun markaa nooga samay. boqorku mar allaala markuu ilaahnimada sheegtay way hor istaageen. waxay dhaheen niyahow ilaah ma tihid, beentaa waay waxa aad sheegayso. rabbunaa rabu asamaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatataa haaulaa'i qowmuna ittakhaduu min duunihi aaliha lowlaa ya'tuuna calayhim bisulطaanin bayin faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba. saasay wiilashii ku hadleen, saasay boqorkii ka hor yidhaahdeen. ma uusan ku degdegin inuu dilo, waa dhallinyaro. waddanka inay wax u qabtaan baa suuragal ah, mustaqbal fiican in laga helaa suuragal ah. wuxuu isleeyahay waa la qalday oo maskaxdoodii wax kale la geliyeye, bal si fiican ula tacaamul. saa darteed ayuu yidhi ordaha ka soo tashada, hadalkan aad keenteen dib isugu laabta, caawa guryihiina iska seexda, beri subax ii kaalaya. saasuu markaa boqorkii ku yidhi wiilashii. way baxeen, laakiin wiilal xaadir ahoo digtoon bay ahaayeen. wiilal waxay ahaayeen feejigan. waxay dareemeen in boqorkani shirqool uu wado uuna rabo inuu dilo. xaaladdaasay markaa ku fakareen wiilashii markay arrintaa ku fakareen ayay qaraar ku gaareen, go'aanna ku gaareen inay ka tagaan meesha, inay isaga baxaan magaalada, inay god iska aadaan. waa meesha ilaah uu ka yidhi subxaana wa tacaala naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi, rasuulka allow annagaa kuu qisoonayna. idan waa qiso, waa sheeko. faqsus ilqasas, sheekooyinka u sheeg. naxnu naqusu calayka, macnaha wuxuu yidhi ilaahay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi inahum fityatun aamanuu birabbihim, wiilal dhallinyaro ah oo rabbigood rumeeyey ayay ahaayeen. wasidnaahum hudaa, yaa wax bedeli kara dhallinyaro, yaa diinta kor u qaadi kara dhallinyaro, yaa fisqiga bannaanka soo dhigi kara dhallinyaro, yaa fasahaadka kor u qaadi kara dhallinyaro. saa darteed baa afar lagu tilmaamaa inuu rasuulku yidhi bay dhahaan nusirtu bishabaab, dhallinyaraa laygu gargaaray, ow kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam. dhallinyaradu waxay leeyihiin juhdi iyo imtiqaanaad taag. saa darteed baa caalamku wuxuu ku tartamaa waa dhallinyarada. mar allaala marka dhallinyaro akhlaaqdooda la haleeyo, akhlaaqdooda la dumiyo, akhlaaqdooda eber laga dhigo, bulshadaa way u dhammaatay. ay ka fakaraan sigaarkii cabi lahaayeen, oo ay ka fakaraan meeshay seexan lahaayeen, oo ay ka fakaraan waxay cuni lahaayeen, labiskii ay qaadan lahaayeen keliya. inta hadduu fakarkoodu noqdo dhallinyaradu way u dhammaatay. laakiin bulsho iyo waddan dhallinyaradiisa hadday feegjigan yihiin, marba marka ka dambaysay fakaraan wax cusub inay soo saaraan, caalamku wax inay ku soo siyaadiyaan, naftoodu inay wax taraan, waddankoodu ay wax taraan. dhallinyarada noocaas waa dhallinyaro laga faa'iidaysan karo. saa darteed baa kuweena banooni la ciyaaro iyo fisqi la sameeyo waxaa la gaarsiisan yahay heer lagu tartansiiyo maanta sanadka soo socda cayaaraha adduunka. waxaa ku maanta ciyaarta dhici doonta waxaa ku guulaysanaysa koox hebel. waxay ku dirayaan message, markaasaa 1,000 iyo 2,000 oo shilin loo soo tuuraa. dhallinyaro xaalkooda saasaa maanta joogta oo muslimiin sheegata oo laga sugayaa inay mustaqbal wanaagsan ummad u higsadaan, oo ay wax bedelaan, oo ay bulshadooda wanaajiyaan. 24 sac wixii soo dhacay mesajkaa ku soo dhacay fiiriyaan, kaasaa laga jawaabayaa. nebigu xaguu ku dhashay ma ahee yaa gool dhalin doona waaye. nebi moxamed sal alla alay wasalam xadiiskiisa saasuu ahaa, ma aha tartankee yaa laga adkaan doonaa waaye. kaasaa bakhtiyaa nasiib iyo khamaar ama khimaar ay ku ciyaarayaan. dhallinyaradeenna gobolka mid ah naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi inahum fidyatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa. dhallinyaro rabbi rumaysay ahaayeen, hanuunkii baan u kordhinay. maxaa loola jeedaa? waxaa loola jeedaa baa layidhi qalbigoodii baa iimaanka laga buuxiyey. weel haddii la buuxiyo wuu daadan soo maaha,
haddii weel la buuxiyo waa daadaadanaya suusan iimaanka uga daadanin. warabatnaa calaa quluubihim, quluubtooda waa xirnay buu dhaha subxaana wa tacaala. caagga saliidda marka wax badan lagu shubo afkaa laga xiraa ma daato, caanaha afkaa laga xiraa ma daato markuu buuxo, laakiin markuu haaf yahay ama nus yahay wuu iska dhaqdhaqaaqa. hadduu dhaco waxaa dhici karta uu gadoomo xataa inuusan wax badan daadanin. laakiin mar haddii uu buuxo oo weelkii uu buuxsamo, hadduu dhulka ku dhaco ama wax jug siiyaan wuu ka daadanaa. suusan u daadan buu ilaahay afka ka xiray subxaana wa tacaala iimaankii qalbigooda ku jiray. warabatnaa calaa quluubihim, quluubtaan ka rabitnay oo ka xirnay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. goormee? id qaamuu, wakhti ay istaageen ay boqorka hor istaageen oo faqaaluu rabbunaa ay dhaheen rabbigeen rabbu asamaawaati waalardi, waa samaawaadkii arlada rabbiga abuuray. samaad ma abuurtay? maya dheh, rabbi ma tihid. arlada aad maa abuuray? may dheh, rabbi ma tihid. rabbunaa rabu asamaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaahan, asaga sukadiisa ilaah aan caabudayna ma jiro. laqad qulnaa idan shatataa, haddaan dhahno alla kalaa jiroon caabudnana shatat baan la nimid, xadgudub baa la nimid waaye. macnaha haaulaa'i qowmunaa, kuwani tolkeennii waaye, dadkeennii waaye, adigay ilaah kaa dhigteen. ittakhaduu min duunihi aaliha lowlaa ya'tuuna calayhim bisulطaanin bayin, xujacad may keenan aad ilaahay ku tahay. faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba, faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban, war yaa ka been badan qof ilaahay ku been abuurtay subxaana wa tacaala. beenaale ka been badan ma jiro qof yidhi ilaahay keyrkiisaa ilaah kala jira. wiilashii markii xaalkaa boqorku uu soo agmaray oo ay soo baxeen, waxay go'aan ku gaareen inay dhaqaaqaan. maxay dhaheen? waid i'tazaltumuuhum, kuwan haddaad ka fogaateen, wamaa yacbuduuna, iyo waxa ay caabudayaan ilaa ilaahay mooye, fa'wuu ila alkahfi, god isaga hoyda baxa, sariiraha ka dega, god gala. waxaan hadday dhab idinka tahay god seexda baxa. fa'wuu ila alkahfi, ma qasaaraysaan. yanshur lakum rabbukum min raxmatihi wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa, ilaah wuu idin fidinaa naxariistiisa, kadibna mirfaq buu idin diyaarinayaa ilaahay. dhulka aad seexanaysaana idinkaga fadli badan sariir ilaahay loogu shariig yeelo subxaana wa tacaala. baxay dhaheen waid i'tazaltumuuhum, kuwanba haddaad ka dheeraateen oo aad ka fogaateen iyo waxay caabudayaan ilaahay sukadiisa, magaalada haba sii joogina, ka baxa meesha, god isaga hoyda. fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatihi, naxariistiisuu ilaahay idin fidinayaa subxaanahu wa tacaala. wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa, mirfaqna ilahay wuu idin diyaarinayaa. waa qaban qaabsadeen wiilashii, way diyaargaroobeen. habeennimo inay baxaanna go'aan bayba ku gaareen, way isballansadeen. xilligii mawcidkii ballanta markii la gaarayna wiilashii way dhaqaaqeen. waxaa ka cajaa'ib badan, ey baa raacay. allahu akbar. eyaa raacay. waa ey, waa kelab, waa xayawaankii bini aadamku ugu necab yihiin. mar allaala markuu daba socdo ee uu daba socdo ee uu socdo way iska soo cayriyaan. wah intuu dhaho yuu ka noqdaa. markay sii jeestaana waa daba raacaa. kaale mucjisadan arag. wiilashii way sii socdaan, tiradooda gadaal baanu ka sheegi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. way sii socdaan, kama haraayo. gadaal bay soo fiiriyaan, waa kana waa soo shaxlaynayaan, waa cayrinayaan, waa burinayaan. wah buu leeyahay, wax yar, wax noqonayo iska dhigaya. markay dhaqaaqaan waa soo daba socdaan. wiilashii way la tacajubeen, way la yaabeen, say arrinta ay u tadburaan iyo say wax u yeelaan bay la'yihiin. taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa eygii markii ka badiyeen, idaaya ayuu yidhi, waxaad ka cararaysaan ayaan anigana ka cararayaa. allahu akbar. waxaad ka ordaysiin aan ka ordaya. sow shirki ma ka ordin? ana shirkiya ka ordaa. sow kama ordin ninkaan ilaahnimada sheegtay, anna kiyaan ka ordaya. ma hoos joogi kari, anna idhaafa. farahay ka qaadeen. ey baa raacay wiilashii. ey ayaa markaa raacayoo tiradoodii ey baa tiro dheeraada ku noqday. gadaalaannu ka tilmaami doonaa idin ilaahay. intaa waxay ka dambeeyey wiilashii way baxeen, godkii bayna galeen. godkii mar allaala markii ay galeen, eygii muxuu sameeyey? eygii
bannaanka ayuu fadhiistay, ma uusan la gelin. wa kalbuhum baasitun diraacayhi bilwasiid. meesha haynoo joogto. wabillahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.